إن شاء الله تعالى برنامج كان مركز سيدو كل كي هراء وكسراني مارت وحبايس كبدلة إن شاء الله وانسوا قابلنا مركز الرئيس إن شاء الله وحاول يا عبد الله شيخ حسين إن شاء الله ومارت القرآن آخر إن شاء الله دي ليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا خير الجزاء. قرآن ككتب إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى وحونا قد يدد مسلمين نعمة وقوين إلهي سبحانه وتعالى النسية ونعمة الإسلام. وحام برنامج كان سوني مدعاء وحاوية إن شاء الله تعالى بوك وقري دكتور أحمد نور محمد وكسابسن ديوانكي معنا مارتين marka horeysa soogaanta Soomaalida iyo maqaamka ay ku leedahay af Soomaaliga iyo soogaantu macnaha ay leedahay wa khaasatan ku saabsan raaga ugaas oo laga yaabo cid kasta oo maartay iskuul soo dhigatay inay ku soo qaadan jirtay maartay iskuulaadkeena ay ku soo qaadan jirtay ayaan isugu nimid insha Allah ta'ala. انت كدب امام كان شيخ احمد نور ايان ان شاء الله تعالى ميكروفونك كسو دوينيا سيو ماركتاي كلمات براروجينا او الله كعبسي او مارتو ينوفرو او مارتاي انو وعدي ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني إن شاء الله waxaan filayaa hadda wacdi kale goobtan ma laha inaan nidhaahno Allah subxaanahu wa ta'ala ha laga baqo kadibna wali kulli maqaamin lahu maqaal kelimad yar oo furfurasho ku saabsan gabayga aynu meesha u fadhina insha Allah ta'ala iyo miisaanka islaamka wixii uu ka qabo insha Allah ta'ala waxa ku soo arooray gabayga nusuus kala duwan oo si guud ahaaneed qaarkeed u sheegayso gabaygu وسيدا الله سبحانه وتعالى أوليه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون لكن الله وحكذب كان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا مركا قبيقو
wuxuu ka mid yahay hadalka ay dadku yidhaahdaan kiisa fiicanna wuxuu noqonayaa kan fiican oo kale kiisa xunna wuxuu noqonayaa midka xun oo kale wuxuu sheegay rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi xikmo badan inna min ashicri la xikma shicirka xikmad baa ku sugan gabayga xikmad baa ku jirta xikmaddaasoo si kooban hadal dheer iyo hadal meel fog aad ka soo ururin lahayd si kooban uu ninka gabaygaagii u soo qabanayo macnihiina u aadaya muhimkaayee la rabay allahna subxaana wa tacaala wuxuu ka soo reebay nimankii shucarada ahaa ee aqraadda shicirka ee qaybihiisa tirada badan oo faanka iyo hujuumka cidaha kale iyo howlo badan ay ku jiri jireen dadka ahlu iimaanka ah inay iyagu gabaygoodu u yahay mid fiican ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati wadakaruu allaha kaiiran waintasaruu marka dadka ahlu iimaanka gabaygoodu waa gabay aad iyo aad muhiim u ah wuxuuna keenaa ood ogtihiin waayihii hore dadkii jaahiligii naga hore oo islaamka xitaa ka hor oo kale nimanka ee la yidhaahdo mucallaqaatu sabcada oo kale iska leh oo shucaradii jaahiliga ahaa ilaa yowmina haada haddii la rabo in wax la soo deliishado waxaa badan in lasoo qaato gabaygooda oo luqaddii asalka ahayd ee carbeed ka tarjumaya oo tusinaya inuusan ayna dhumin oo luqaddu ayna dhumin sidaas oo kale suugaan marka la yidhaahdana waa gabay suugaantuna waxay ka tarjumaysaa inayna luqaddii iyaduna ayna dhumin oo la xifdiyo oo la ilaaliyo caawa arintaynu u fadhino oo doctor sheekh axmed nuur maxamed uu inoo soo diyaariyey ama buugga uu qoray wuxuu ka tarjumayaa ama idaafa uu yahay jadiida insha allahu tacaala in la ilaaliyo luqadeenni oo la xifdiyo oo ayna dayacmin dadkii hore oo intay gabyeen ooy hal abuur badan sameeyeen ooy xigmad ay sameeyeen soomaaliyeed inay ku soo biiriyaan waagii hore waxaa la odhan jiray wax qora dadkeennu waxa ummadaha kale ay qoreenna baa laga yaabaa inaynu aqriskeedu xitaa inagu adag yahay laakiin alxamdulilah inay dadkeennu wax qoraan oo weliba luqadeennii ee soomaaliyeed oo looga dhergi karo biyo sacbaha looga dhergaa maanta wax lagu qoro waa wax fiican marka kaatibka mu'alifka sheekh axmed nuurna waan ku soo dhawaynaynaa insha allahu tacaala isagoo oo ayna ahayn kitaabkii ugu horreeyey oo qoro oo ay jireen kuwa ka horreeyey inta kale oo mutacalimiinta ana inay iyaguna sidaas oo kale lagu daydo waan soo dhawaynaynaa insha allah jazaakum allah khayr baaraka allah fiik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku bilaabayaa haddii la idinka dhigo inaan u mahad celiyo akhyaartii halkan isugu keen yeedhay inoo abaabushay shirkan aynu isugu nimi si aynu ugu kala faa'iidaysanno waxaan kaloo runtii u mahad celinayaa akhyaarta ka soo qayb gashay shirka marweyne mudaryaalba waxaan kaloo u mahad celinayaa doctor sheekh axmed nuur oo sabab u ahaa inaynu maanta halkan isugu nimaadno iyadoo uu isugu keen yeedhay buugga uu qoray oo aynu sheekha waxaanu ku ogeyn sheekh arrimaha diinta iyo culumta diinta ku xeel dheer oo waqti aan fogeyn aan u malaynayo inuu difaacay PhD shahaadada la yidhaahdo oo ah kolley cilmiga maadiga meelaha ugu sarreysa ee la gaadho ama cilmiga diiniga marka la eego labadaba ku noqdaba laakiin ma kuma ogeyn suugaanyahan iyo qoraa
suugaanta Soomaalida ah qoraa runtii kuma ogeyn markii la ii sheegayay oo la igu yiri Sheekh Axmed buug uu qoray ayaa la soo bandhigayaa xadda buug feer baa ka jira oo Sheekh Axmed buug uu qoray lagu soo bandhigayo oo suugaan buuna ku saabsan yahay waxaan leenahay Sheekh Axmed Nuur aad iyo aad baan u mahadsan tahay inaad suugaanta Soomaalida in qoraal lagu helo inaad juhdi iyo waqti gelisay suugaantu waxaynu ognahay waxa weeyaan waa qalbiga ma garanaysaa af kasta gabayaan akhriyo waxa ugu badnaa gabaygii Sayd Maxamed Cabdalla Xasan bugaag baan ka akhriyay iyadana mana qaybo laakiin bugaagta markaan ka akhriyo aad iyo aad baan u jeclaystaa siiqada uu qoran yahay iyo sida uu xikmadda u gudbinayo aad baan u jeclaystaa ragawgaas markaa wuxuu kaga jiraa heerka koowaad inuu kaga jiro gabayaaga Soomaaliyeed ama suugaanyaanka Soomaaliyeed ayaynu ognahay inta ayaan ku soo gaabsanayaa aad buu u mahadsan yahay sheekhu waxaan rajaynaynaa haddii alla yariyo inaynu wax badan ka faa'iideysan doono buugga uu qoray والله ولي توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته luqad kastayba waxay u qaybsantaa labo wax la yiraahdo gabay iyo wax hadal caadi ah la yiraahdo luqada carabiga waxa la yiraahdaa tix iyo waxa la yiraahdaa luqada carabiga nadmi iyo nathri nadmi waa waxa la wixii gabay ku soo arooray oo gabay ku qoran nathrina waxa la yiraahdaa waxa kutubta sida kale marka waxa laga yaabaa nathriga badan kutubta marka islaamka hadaad fiiriso markaad kaba soo tagtaba kuwa luqada una inta soo kitaabo waxaad arkaysaa ama fiqiya ama mustalaha oo ku qoran gabay marka gabaygu suu sheekhu way noo sheegay wuxuu yiri nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi inna la fi shi'ri hikma shi'rka waxa ku jira xigmad marka hadii dhinaca xun loo adeegsadana waa waxyaabaha dadka ugu kicinog oo xadgudubyo badan in lagu galaa laga yaabaa haddii dhinaca fiican loo adeegsadana waa waxa dadka aqligiisa ugu kobcinog oo qofka shaacirkiihi dadka wuxuuna ka fahmo badan yahay mararka barkood waxa soo waa ka aqli badan yahay waa ka aqoon badan yahay oo waxaadan garanaynin oo aadan weligaana arag ayaa waxaad arkaysaa isagoo gabay ku sheegay oo ku cabiraya marka taasi waa sidaas إن شاء الله تعالى هذا وحاكو سو دوينيا عبد القادر إن شاء الله تعالى سونا ماركتا هدي أن كفتن يركب بلابو مركي هذا كراساس أنا عبد الله يعني لكسو كعنهاي يا حاس كيجو يكفر إذا واحد تروح نكانوا مجبيه جوينا وحكمية قانا أنا أتريه جبيانا ماشي عن فريست هل يجي حاجة سيان قبيدي يو حاجات تريو مركه هرت سيدا سان كاه هرت أنا قبي ما نتريو ما نحفظه لكن قبل والبو حسولو إن أنا كأقانو هل سنتينس سنتينس اللي ما يراه وحلا يراه واد هل واد هرت إلهي مهدي سويه inkastoo dalkii naga burburay haddana aw hadda aan iskuuladii iyo aan laga dhiganayn ama aan iskuulo aan ka dhiganay gabayadii aan hayn oo caruurtana ma u dhigno laakiin maad ilaahay internetkii wax alla wixii gabay ahaa intii la hayay ay ku jiraan oo qofkii doonaya uu ka heli karo waxaan suurooda inaysan wada dhamaystirnayn
ama sidii haddaayto markii shiikhu warramahayay oo aanu tv-ga ka fiirsanaynay gabay qof uu leeyahay in qof kale la siiyo oo aynu magac kale ku aragno gabayada Soomaalida kuwa inta hadda socota waxaan u malaynayaa haddaan khaldanayn gabayada Soomaalidu inta laga hayaa maaret gabayada Soomaalida waxaan u malaynayaa haddaan khaldanayn suugaanyahanada loo sheegi doonee gabayada Soomaaliduna waxay u badnaayeen degaan area mantiqad bay u badnaayeen Soomaalidu meel walba ay joogto afar hees ka tuurto laakiin gabayada dheer ama deegaanka oo la yaqaano meelaha laga tirin jiray area oo gabaygu kama duwana inkastoo xigmad qofka Ilaahay siiyo iyo uu yahay haddana waa sida ciyaaraha oo kale ciyaaraha waad aragtaan ciyaarahan orodka Kenyaanka iyo Ethiopiaanka iyo dadka ka yimaada Kalenjin special area ayay ka yimaadaan dadka ciyaaraha orodka adduunyada qaata way u qaataan dadkaas wasku dayanayaan war cali haduu orday oo intaasoo meel orday ana waa ordi karaa marka waxa aan ugu deeq qiyaasayda gabaygii markii halkaan ka tiriyo dariskaaya oo ama kugu tiriyo dib dhacay dagaal dhacay ama maxaa la yiraahdaa faan dhacay oo ama qabiilada ku saabsanaadeen ama dagaaladaas ku saabsanaadeen ayaa mid kale leeyahay soo inaan gabiyo ma gabay ninkaas inaan jawaab soo ma aw jaamac maraan anigu la sheekaystay wuxuu igu yiri asagoo de quraankana bartay oo dhalinyaro ah ayaa wuxuu yiri galab anoo geel wada maqribkii geel iyaga wada ayaa waxaan u imid islaan haan luulanaysa oo ninkii Ingiriiska ahaayo asarkiisu Polish buu ahaaye Andrewiski baa wuxuu qoranayaa islaantaasu haanta ay luulayso caanaha waa loo gabiyaa waa loo heesaa caanaha ayaa Andrewiski qoranayaa waana ag istaag markaasaan ku qoslay markaan ku qoslay ayuu yiri war naga tag waryaa ka tag meeshatan anu waxaan ku qoslayaa gaalka kan cad oo Ingiriiska ah oo habartaan ciirta luulanaysa ka qoranaya ay luulashadii ay luulaysa ka qoranaya yaan la yaabay oo shidaaladana waa isaga tagay geeli baan dheelmay xeradii geeyay marka intaan sii socdaan waxaan ka fikiray ninkaas Ingiriiska wax uu xigmada ku jirto habartaas ciirta luulaysa wuxuu ka qoranayo oo inagu aynaan inaba dhuganayn xagga u dhuganayn horta barigahaas ugu dhalatay inaan qoro oo anu gabaygaan arko iyo cidii aan arko gabiyaysa aan ka qoro dabadeedna markii dawaabay la tagtay waa taas hadda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah جزاكم الله خيرا هدنا waxaan ku soo dhaweynaa insha Allah taala Abdullah Diiriye marka hore waxaan u hambalyeeyaa Ustaad Ahmed saaxiibkay buugan quruxda badan leh oo qoray xigmada badan xambaarsan tahay walaalayaal waxa weeyaan barnaamijkan caawa waa barnaamij aad u qurxoon oo runtii u baahan ku dayasho dhaqan umara aan lahayn hadaan Soomaalinahay inaan wax qorno 20 sano iyo ka badan ma halka joognaa waxaan u maraynayaa buugga ugu horeeyay magaalada lagu qoro waa buugga kan marka waxaan go'aabinaynaa in wax la qoro af Soomaaligu waa luqad qani ah waa luqadaha adduunka ugu horeeya xagga literature-ka ay ka mid yihiin sida xataa uu sheegay Richard Burton markuu saaminayay bariga Afrika wuxuu ku sheegay afka Soomaaliga inuu yahay af ma garanaysaa caan ku ah gabayga oo ka hormaray waxa weeyaan muddo dheer ayaa dadka Soomaaliyeed communication-kooda u ahaa oo kaliya
gabayga inay war isku gaarsiiyaan anigu dhaqan ahaan miyi kuma soo korin oo af Soomaaliga waxa ka barta dadka miyiga ku soo koray dhaqankana ayaga si fiican u yaqaana dadkeena magaalada jooga waa iska bowsina af Soomaaliga wax badan ka garan mayno iskuulada markaan dhiganayna waxaan naloo sheegay danta Algeero iyo dadkaasina ahaayeen gabyaagi ugu caansan adduunka iyo Alexander Pushkin iyo ninkan la yiraahdo Ingiriiska hadda uu sheegay muxuu ahaa Noorgas laakiin waxaan ogaadnay markii dambeeto in Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ay ka sareeyaan dadkaas inaan gabyaa aan leenahay gabyaa kuwa ka sareeya oo tiro ka badan tiriyay oo ka xigmad badan marka af Soomaaligu waxa weeyaan waxa aan la soo koobi karin farabadnidiisa iyo wanaagiisa meeshan hadda ku noolnahay ee Seattle qowmiyad kasta waxay leedahay cultural center annagu ma lihin taas mana noo muuqato inaan helayno mana noo muuqato inaan ka shaqaynayno taa haddii aanan ka shaqayn karin oo weyn caruurteenna af Soomaaliga ma yaqaanaan hadda roob la ag joogo iskuuladan Washington cunuga luqadiisa hooyo haddii uu yaqaano imtixaan buu ku galayaa creditna waa ku helayaa caruurta Soomaaliyeed ma galaan imtixaankaas soo sax ma aan rooble marka af Soomaaliga wuu naga lumayaa af Soomaaliga wuu laga lumayaaye ma daba qabanaa waxyaabahan ku daba qaban karna waxa weeye caruurta in lagu la hadlo af Soomaaliga in qoraalka la baro iyo inay akhristaan buugaagta af Soomaaliga waqtiyada firaaqada ay tahay intaas ayaan ku dardaarmayaa waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullah waad mahadsantiin insha Allah rooblo inagala jooga iskuulaadkii oo dhanna ka warqaba dadka afka say ku yihiin insha Allah ayaa u dhiibaya insha Allah aan ku soo dhaweynaya السلام عليكم بلشو سوى حجر هذيك قارا قرنا حتى بلشو بركارا بلا بقروا يسير والله دفعته والله يا الله كودها رنتي مركا عاد فلسطينو ورت آدي عادو ماسيهن أضياش هاللي رنتي إيمانك إيو أضياش أبوانا ذا كل هاللي آدي ماسيهن وحلو بهاي هوا صومالي ذو وحوكلوا بحال لما قيبوت qayb xoolo dhaqata oo gel jira ee qolal beeraleyda hadalka ku fiicno gabayga ma ku fiicno rutba loo hadlo hadda waxa la hadlayaa geela marka aan fiiriyo anaga waxaan ka bartay geela waxay ahayd geel xaarab ma noolo geela kul wuxuu ka yaqaanaa ma fahmino hatta markii daba bartay geela hatta waxaan arkay dad geel jirayaasha hatta waxay ku maamaahan nina geerida waxay ku fiicanta nina la aqoon iyo taas micnaheedu waxa waaye naceeb ma runtii meeshaan qurbaha joogno waa loo baahan yahay suugaanta gaar ahaan gabayada iyo buugta dalkeena wuxuu qani ku yahay wax la yiraahdo oral tradition waxyaalaha aan dhaqankeena isku dhaafi jirnay waxaa kamid ah gabayada iyo suugaanta buug ma la qori jirin af Soomaaliga waxaa la bilaabay 1972 runtii in dadka gabiyay Soomaalida dhaqankeeda waxyaalo fara badan ay noo soo gudbiyeen laakiin nasiib darro waqtiga dagaaladii sukay markay bilaawdeen dadkuna waa baabeen wax bedelana ma jiro ardayda Soomaaliga siyaala dhigato waxay ka kooban tahay ugu yaraan 3500 tirada guud siyaal ul iskuul waxa 55 kun oo arday waa ardayda Soomaalida runtii guryaha ee ka yimaadaano ayaa luqada guriga ku xiranta intooda badan Soomaaliga ma garanayaan luqada qofka markay garanayaan dhibaatay leedahay waxay ku dhumaysaa dhaqankeeda diinteeda wax kasta ka dhumaysaa waxa loo baahan yahay tawaaridiinta inaan tusino luqadeena Soomaaliga inay tahay luqad fiican aan barna caruurteena taada kale luqada wax kale ka fiican tahay jiro wuxuu ku fiican tahay kale hadda luqooyinka waa la qiimeeyaa ardayga markuu ka qalin jabiyo dugsiga sare ama jaamacad markuu galayo waa inuu laba luqad kale ku hadlaa luqada kale oo ku hadlay dadkeena Soomaaliya ku hadlaan laakiin nasiib darro imtixaan marka laga qaado ma qori karaano mana akhri karaano ma ku balmoosayaan marka waxa loo baahan yahay xoog inaan saarno runtii buugana wax loo baahan yahay buugaagta xog fiican yihiin hatta waalidka iyo caruurta
waxyaalaha ay ka wada qaybgeli karaan ka mid tahay haddii buugaas garatid hooyada garataan aabbaha gato oo cunuga u sheego u akhriyo cunuga xataa wuxuu fahmayaa in Soomaaliga la qori jiray luqada ay jirto caruurta marka Soomaali markaa weydiis Soomaali qoraalkiisa loo qoraa kullee ma gar Soomaali ma jirtay kulleeyihiinba in waxay ka mid tahay xataa dhiirigelinta lagu sameeynayo in buugga inaan gadano walaalayaal waa mahadsantiin ومهتن يا أخونا علي الروبلة ولي برنامج كمان نحن كجرنا وحي نودي من إلى الله بس صدق قف ومارت كوميونتي ليدرز إن شاء الله تعالى ونسين دونا لكن هذا وحن رواينا عن دكتور أحمد كسودوي إن شاء الله تعالى ونعاون مناسبات نسوي سجون نمد مرجع سوا حويا ومارت وحنا ما نتذكر إن توضع فرع بينه وقرنا يو وحال إلى دكتور أحمد نور محمد وحين لجوا مقالة إلا إيوه لبكون يكودي أيو ولايتنا كنا الله أيو كنا الله شهادات كعلمي أو هايستو إلا PhD أو قدام بيسو كقاتي جامعة دا فرجينيا كوتا الله الجامعة العالمية الأمريكية جامعة أمريكا العالمية كنت على فرجينيا وكقاته PhD سي مارت شهادة يوسرس شاه أحمد وحو قري كتب فربضان أو يسوجرت كتب مطبوع كل كان لنا وكتب سوق جلي أو لا أخرسته يكوى مخطوطات أو حدا مطبعة كتيرة هدي أنك سوق هذا إنه كتبتها كتاب كاسوة مختارات من أذكار الكتاب والسنة أو الله وديجو دكسية هذا مقالة إنه كي لين توضع فرها بدن عيال كلا ديجو أو يسوجر إنجليز إيوه عربي كتاب كو الدكتوراه دا كو قاتي وحال يدادا آثار الملل والأهواء السابقة على على الإسلام في ظهور الفرق والمذاهب الضالة أو المذاهب الهدامة متكاتر هذا وكتاب كاس وحاويا وتحت الطبع ويان ولا مطبعين دونا إن شاء الله تعالى وحاك له كمدة كتبته ومارت مخطوطات كا وأن ولي إيادنا مارت عن صابح لكن مارت وقري كتاب كاسوة الكتابة الواضحة لمتعلمي القراءة الكتابة العربية ويسوون تحت مارت طبعه ويسوون صابح دونا إن شاء الله تعالى كتبك وحويان وقرالك عربي سيدا لوغو بري لها عيالك ككلنا وحويان ورادك أي ديمها يو مارت وحيابها قفك هودي سوكا كان سدي رادك أي كل هذا هاي مارت إيوه صوبحتان كي صوبحين مارت مذاهب فربضان أما سكوحة فربضان أو خطر كوة جريتان كمجتمع جريتان كمارت إن آدمها خاصة ضد كمسلمين تا إن وحاك له قري كتاب كله مارت يسوون مخطوطة أو مارت تخريج وحل يدادو وصحتان بكو سميي إن صحابي قال لي هذا عمار بن ياسر وحي أحاديث أثرها لقاها يكسو أرورتي أو كسو أرورية مسند إمام أحمد كتاب كمسند كإمام أحمد أيو مارت كسو قاطي يو مارت يو تخريجية ووحي مارت صحيحي يو ضعيف كوكلا ساري وحاكلو قرية أنا مخطوط كتاب كلو أصل القصة لمولد الاحتفال لمولد النبوي صلى الله عليه وسلم أصل كيماشى إمارة سلك كوهايسو
in loo ixtifaalo macnaha maaragtay nabiga dhalashadiisa salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa kale oo isagana maaragtay aan caawa u joognaa diiwaanka gabayadii raagowgaas oo isaguna matbuuca oo soo baxay oo maaragtay aan caawa aan u fadhino ay maaragtay buug wakaas diiwaanka raagowgaas waxaa magaciisa la yidhahdaa tixya tiraab waa wixii aan kolkii sheegaynay oo Soomaaligu uu qaybsamo macnaha ka way labada luqaba Soomaaligii iyo Carabigiiba macnaha Dr. Axmed uu ku qoraa ingiriiskana waxaan u malayn doonaa inuu ku qori doono insha Allah taala kullu uu ku qori doonaa baa waarta uu ku qori karaa inta kadib waxa u baahanahay dad fara badan oo noocaas oo kala waxa u baahanahay inaynu tashjiicino oo aynu maaragtay dhiiro gelino si ay dadkaas oo kale fara badan inoo soo baxaan manaahijta Seattle iyo Washington State ee manaahijta ciyaalka oo khaasatan xagga madaaris dugsiyada ah inaynu maaragtay dadkaas oo kale u daba joogsano nidhaahno waa inay noo sameeyaan oo maaragtay iyaga ay noo sameeyaan ayaan u baahanahay masaajidada iyo ina masaajid qofku uu maaragtay duruus laga akhriyo waan wada awoodnaa wax badan dad badan baa awooda laakiin ka waadirta dadka soo saaraysa insha Allah taala ina maaragtay la dhiiro geliyo ayaa loo baahan yahay inta kadib isaga Dr. Axmed Nuur ayaan ku soo dhaweynayaa si aynu maaragtay uga dhageysano kalmaadkiisa bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala ma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh walaalayaal kulligiin iyo dadka iga waaweyn oo waalidka aba waad mahadsantihiin dadkii xafladda soo qabanqaabiyay cuntada gabdhihii keenay iyo dadkii yimid intaba runtii waxaad ogaan jirteen aniga oo masaajid iyo abaabulo ku jiro laakiin caawa xogaa way ka duwan tahay arintu xaggayga u badan tahay marka insha Allah taala aan galla ilaahay idankiisa mashruuca aan ka hadlayno oo ah diiwaankii gobayadii raagowgaas sidaad ka fahmaysaan kelimada tix iyo tiraab buuga magacaas uu leeyahay waana buug af Soomaali ku qoran buug aan muddo hindisay weeyaan ama aan maanka ku hayay inaan qoro waayo gobay aan maqla ama xifdiyo yaraantaydii kuwii raawgaas baa ugu horeeyay saadaradeed raagowgaas ninka aan caaw u fadhinaa gobaygiisa inaynu maaragtay aan soo bandhigno waa raagowgaas warfaaba la yidhaahdaa waa nin Soomaaliya ku dhashayna gobolada galbeedka kore ee Soomaalidu ay degto sidaad maabka ka arkaysaan buuga waxa weey insha Allah ma arki doontaan gacanta marka idin soo galo waqtiyadii raago dhulka Soomaaliyeed xuduud ma lahayn sayn cadaa iyo sayn madooba midna caks ma soo dhigin ama kuma nasanin waan dhigi karnaa way yimaadeen ninkii Richard Lawrence jiray Burton oo 1853 ilaa 4 bay yimid wadanka ilaa heerna tagay nin Ingiriis oo ahaa iyagoo saddex birbira ka sii noqonayaan mid laga dilay midna laga dhaawacay way yimaadeen kuwaas way ahayd meeshii ugu horeeyay Faransiisku yimaadeen oo dadka dhulka Soomaalida ee Djibouti hadda loo yaqaano ay heshiiska la sameeyeen dhinacaasna iyaga ugu soo horeeyay dhinaca Boosaasiya xagan iyagana niman ma garanaysaa xagga xeebta way yimaadeen niman Talyaani ah imaanshahaas oo dalxiis yana dhihina dhul mareennimo iyo isugu jira maxay ahayday inay dad isticmaalka nimankii ka horeeyay weeyaan oo dhulka dadka sahan bay ahaayeen sahan ahaan bay ku yimaadeen meen deegaan kuma imanin marka waxay ahayd waqtiga iyada ah oo Soomaalidu dhulkeeda oo dhan isku wada furnaa aan dhulna la kala lahayn ayuu raaga noolaa marka waxa weeyaan waa inaad saa ogaataan raage ugaas warfaa Soomaalidu waxay u aqoonsan tahay gobyaaga koobaad taas micnaheedu ma aha inuu isagu gobayga dah furay ama abuuray ama ugu horeeyay ruux af gobayga ku hadla Soomaalidu suugaanteedu dadku yey la fir yahay dadka Soomaaliyeed bay suugaantu la fir tahay kolkii Soomaali la helayna suugaantana waa la helay laakiin raaga wuxuu
oo aabaha gabayga Soomaaliyeed ku noqday ama gabayaaga koobaad shaacir fil martaba al-ula shaacirka martabada koobaad oo meesha Imrul Qays Carabta u jooga Imrul Qays gabayga waa looga horeeyay laakiin waxa weeyaan wuxuu leeyahay ma garanaysaa qodob uu leeyahay wuxuu leeyahay awood ayna dadka kale lahayn oo xagga luqada uu leeyahay oo dholatus isu rogaysa gabaygiisa wuxuu leeyahay ma garanaysaa meerisyada ugu dheer marka gabayga la yiraahdo meeris ahaan in kasoo gabaygiisa gabay dheer laga haynin wuxuu leeyahay ma garanaysaa qaybihii laga hadli jiray ayuu kulligood calanka u sidaa wuxuu ku soo kordhiyay qaybo badan oo Soomaalidu ayna ka gobi jirin sida baroor diiqda iyo in dumarka lagu amaano gabayga raagowgaas gabdhaha iyagoo nool iyo iyagoo dhintay buu amaanay gabadhii uu libaax ka qaaday wuxuu markay gabaygiisa ugu dambeeyay waa kan uu leeyahay gabaygaas oo Taj Mahalka gabayga Soomaaliyeed ama Taj Mahalkaas wuxuu ahaa meel Hindiya ku taala oo 1632 taala laga dhisay weeyaan taladaasna waxaa dhisay ninka la yiraahdo Jahangir la yiraahdo dhisay maxaan ka wadaa caalim ninka la yiraahdo maxay ahaydee caalim baa dhisay caalim aabihi Jahangir baa loo jeeday Jahangirkaas inay baabar way waa ninkii diimaha badan wadankaas maxay hal wada qaatay kulligood yiri weeyaan kaasna wuxuu ahaa waxa weeyaan dadkii Hindi xukumi jiray weeyaan Ingiriis ka qaaday 1800 iyo konton iyo maxay ahaydee toddobadii Ingiriis ka qaaday weeyaan Ingiriisna waxay ka xoreeyeen 1947 inaad saa ogaataan weey ala kulli xaal waxa weeye raaga ugaas gabaygiisaas taaladaas mumtaas maxal gabadhi la oran jiray ama maxay magacaas isaga ula baxay ninkeedu amihii 14aad bay ku dhimatay taala noocaas oo kala uu gabadha u dhigay markii ereyadiisa ugu dambeeyna waxay ahaayeen inuu yiri konton iyo kun wada dumar konton iyo konton weeyaan hadii meel la wada keeno kol waxaan ka helay nin waa kaafiyo kale gabadha Faadima ila biyo ula baxayba ila biyo dadka shajaratul maa iyo maxay ahaydee duru samaa iyo carabta la bixi jirtay marka dhooq Soomaaliyeed ma in gabadha ninka xaaskiisa inuu ila biyo iyo waxaas ula baxo marka noloshiibu ku amaanay geeridiina uu ku amaanay gabayo badan amaanta ku saabsan oo munaasibeyna meesha ka jeediyana wuu tiriyay isaga daah furay marka qaybta af Carabiga ghazalka lagu yiraahdo oo ma garanaysa in dumarka la amaano dadka Soomaaliyeed dumarka meesha ka joogeen iyo say ula dhaqmi jireen waad garanaysaa dulmigii weynaa ee meesha ka jiray marka raaga saas buu Soomaalida qaybtu ka gabiyaba isaga ayaa calanka iyo boqortooyadaba ku lahaa hadii la yiraahdo maxay ahaydee calaalka Soomaalidu waxay tiraahdaa isaga calaacan buu wixiisa u badnaa dad badan oo gabaygiisa aqoon calaacanku qaybo badan buu leeyahay laakiin qaybtiisu waa baroodiiq markuu ruux ka dhinto weeyaan oo amaanto يعني قيمه ولها إيو سيدا أي محايد هوكركو كاجا جود بنايو سيدا محايد من شمرين يتمشلين دم بعضو كلا تكتين إيو سيدا الدهوين كوجو فرمي أرمها صورن بويساقو يعبرا هدونا قوية دي تكوشير لهنا قوية برول دقيه قوية الصوماليين وحباهان لها بدعوة إيه واحد يبسوق قاري رنتي وحويان راجع مركل إيجو qaybta maxay ahayd oo barooldiiqdiisa isaga dah furitaan nafteeda oo boqorka barooldiiqda Soomaaliyeed weeyaan hadii la yiraahdo maxay ahayd in dad loo goodiyo waxa weeyaan waxyaabahan ka hayn cid gadaashi tirin karta ma jirto markuu leeyahay kale alla gooye oo nabi inkiray oo islaam ma yahay ninka oorideedii qaba ninba gabadh ka guursaday uu goodinaya ninka oorideedii qaba ubad hadii yeesho macna adduunkan dhaafinaya weeyaan marka waxa weey runtii waa goodi aan cidna uga dambaynin aan awoodi karin ruuxna wax ka dambeeyo Soomaaliya oo goodi inta dhaafsan xagee la geynay af Soomaaliya loo mehelayaba marka dhinacii loo eegaba hadii laakiin guud ahaan gobaygiisa xigmadu u badan yahay saadaraad bay Soomaaliya ku hal qabsataa saadaradeed baa loogu goostaa garta gobaygiisa ruux kasto oo arin ka murgato waa kaalin gobaygiisa loo baahan yahay weeyaan oo ma garanaysaa ka soo qaadinaad qolo aad nin dhalinyaro tahay oo qolo ma garanaysaa gabdhaha xoolo badan ku baayacda aad u soo xaragashay ama aad guru doonatay sidoo ninku yiri oo kale gabyaaga ahaa ninba reerba maxay ahayd warniga daayo meeshan ma gali karna markaas warwada xoolo badan muu hayn marka intii dambe markii uu geeyay oo yaradkii wali laga rabo ayaa wuxuu yiri igu laashay meeshii xoolaha wax la xalay wax kale libin ma hooyaan igu laashay meeshii raguba loolanka ahay baliil galiya caaw wixii lagu laamay ma reer noocaas kala dad faraha la gasho oo la hebelba maxay ahayd 60 halaad buu keenay aduguna waa inaad wax keento hadaad gabaygi raaga intaad keento aad tiraado naaqusku Sooriyada haduu suba ku iidanto naaqusku waa ninka badaha wada weeyaan marta ama doonta ha noqdo ama markabka ha noqdo ninka oo rubaanka ka weeyaan naaqusku Sooriyada haduu suba ku iidanto sadkeeday ku qaaraan gashaa suuqa yar jiilal hadii aad tiraado adigu suuqa yarka iska dhigto soo qoladii ka furfuran mayso maxay ahayd soo gartaadi kuma aan goosan garta la goosan leedin sheegay taas weeyaan lagu gargoosto wuxuu ahaa raaga nin Soomaaliyeed ku hal qabsato weeyaan lagu hal qabsan jiray
oo qamaan bulxan oo kale daan soo qaadno maansadu gad bay leedahay miyaan guraacdeeyey galshan lama qoday ceel miyaan gorof ka miidamay gaddii raage iyo weer sooma galaal xoorin cali cilmi afyar 60 iyo 7 masafo wuxuu tiriyay maxay ahayd wadaniya uu leeyahay sidii raage iyo gooni galwi yeedhi meeyay gad sayidkii gadiisii cali dhuux ma gaadhine ragii gobayga loo qoray weli maana gaadhin calaa kulli xaal raagaan ka rabay raagana insha allahu tacaala waa igu hagaagtay waxa weeye aan ku soo noqday raagan insaa loogu halqabsado ahaa oo ma garanaysaa sidii maxay cabdigalayax oo kale markuu leeyahay raaga wadamadaas raagaba marbuu ugu wardheeraaye annagu wiilasheer haartan kac waan ugu weynahay buuri nin cabdillah maxmud wuxuu odhan jiray maxay isaguna raagab rijaal buu ahaa reebay gobayaaye aniguna raggii baan oo raacday gaadhade qowdhan tacaala sidaasoo kale afartaas waa reerinimo loo rakaabsaday sidii raaga layguma qabtee rubax kalaan baadhay ma soo koobi karna nin kastoo gobyaa oo Soomaaliyeed aniga raaga haddii layga reebo anaa dadka u gobobad waa inuu yidhaahdo marka raaga qaabkaas uu ahaa buugaadna ka helaysaan insha allahu tacaala waqtigu inagu hayaay buug ayaad ka helaysaan raggii raaga ku halqabsaday oo dhan oo saf ku jira oo maxay ahayd raggii raaca hore ah sayidku isagu gobay muuna ku sheegay laakiin wuxuu gobay geed baxay buu ahaa guntiisiin ina warfaaylo baa la baxay buu guntiisi ina warfaaylo raaga abi warfaaylo baa la oran jiray marka sayidku waxa weeyaan de waxogaa waa warkiisa waa taqaanaa waxa weeye amaanta muuna siin runtii inuu aad ogaasnimadaas hata uu ka leexiyay ina warfaaylo baa guntiisi la baxay buu mar gobaygu geed baxay baa sayidka ninka gobayga u qiray inuu gobaygu geed baxay oo guntiisi raaga iska leeyay ma ruux saan wad ogtiin marka saad daraadeed Soomaali oo dhan bila muran ayaa raaga waxa la isku waafaqay inuu ahaa gobyaaga koobaad ee Soomaalida wayna saa ogataan ninkii noocaas ahaa in ani la soo gaarsiiyay miyay doorto su'aashu taas way idinka weydiinayaan ani in la soo gaarsiiyo oo caawa arintiisa la keenay halkan war arintaas oo arin that's not fair absolutely insaf maaha waxa weeye af Soomaali 1900 iyo 72 markii la qoray waxa ahayd in la taabagaliyo ikhwaani gobayga buug waxaad ka helaysaan waxyaabo badan raagan xogaa idin daaray gobayadiisina waxba idin kama sheegine wax gobayadiisa buuga ku yaala waa 84 gobay aad ugu tagi doontaan gobay iyo geeraar bay u badan yihiin Soomaalidu qaybo badan bay af Soomaaliga raag wuxuu qaybiyay tix iyo tiraab nin miisaanka Soomaaliga dahfur isaga ugu horeeyay miisaanka gobayga waxa raaga loo siiyay waxyaabahaas ka mid ah gobayga meeriska ugu dheer in Soomaali waligi tiriyay buu raaga leeyahay oo ashir sabane oo mudda oo bariya saadamba ama saakuna hadalka dhaneed moosiin hadda iska sheekeynay waa hal meeris oo gobay meeriska af Soomaaliga meerisna waa la diilina waa la yiraahdaa wuxuu leeyahay hoojis iyo wuxuu leeyahay cayn horaad iyo cayn dambeed buu leeyahay waxa weeyaan alamadiisa la tiriya alamadu waa xarfaha weeyaan ama shibanaada ama shaqal inta markii la sugeeyo tirada noocaas ka ugu dheer buu leeyahay xagga maxay alamadiisa raaga waxa weeyaan dhinaca kale ninka gobayga hooyaalay luqada raaciyo iyo hooyaalay la yiraahdo weeyaan hooyaale hooye oo macnaheedu ahayd sargoynta gobayga weeyaan carabigu sidoo soo socday af carabigu saas oo kale isagu wali la qorin wax yaani maxay ahayd gobayga sargoyntiisa ama miisaankiisa iyo qaafiyadu ku socdo ayaa waxa weeyaan nin la oran jiray Khaliil ibn Ahmad al-Farahidi khaliilkii in Ahmad ahaa reer Farahidi oo noolaa 100 ilaa 73 noolaa 100 hijradu dhashay 173 oo hijradii nabiga kaleey salaatu wa salaam markuu hijrooday kadibna dhintay waa ninka daahfuray weeyaan miisaanka gobayga Carabiga arkaysa marka buxur wax la yiraahdo soo saar 14 baxar marka hadii lagu yiraahdo baxarka baxrul waafiga la yiraahdo 14 kamida بحور العلم وافرها جميل مفاعلة فعول هدي له هذا waxa weeye maxaa ka maqan halka miisaan tiradii ba ka maqan kaliyata raaga wuxuu sameeyay qaabkaas buu intuu u dhigay oo halka ku joojiyay ba adiga laga rabo in alamadii iyo tiradii saarto marka waxa weeye waa ninka gobayga Soomaaliyeed daahfuray weeyaan oo alamadaas iyaga ah xisaabta lagu tiriyo gobayga ninka sameeyay weeyaan runtii علمي بدن أو كاركيسان ويان هنتي بد ما هاي وفاد بد هذا دومها أنا قرت واحد بدن بمن هذا بريهن ده مكبرت إنك صون أنا الحياة أو بدنين وحا ويان ويسقون عن طريقه وحي بوق وحياة بدن بكتيرة كلمات كاتحية ترابون معنيني بكتيرة أفسومالي جاون كهذا اللي بكتيرة إن شاء الله تعالى يسيدوا أقيب سما يلهجون كلين ولا بلهجوا وين ليه يلهجوا سادية بدن الرياض بدن أو هندي محي هذا عربي صواحلي فارسية يا أمحارية إن كتيرة من ماشي كشجني وحان إذا شجني أفسومالي قارتي لقري إن كهر رئيس المجال زي وحياة لو قرا سيدي عثمان محي عثمان كنديد وانكي قارتر ويد حسوسه أي دافسي المركو
garashadii cismaan iyo gogoldhiciisii markuu lahaa maxay ahayd ninkii la odhan jiray gahadh iyo salaam baa geel dhalay ku qaatay raggii gabayga loo qiray ana gaadhin uu lahaa maxay ahayd cali cilmaaf yare 1920 buu farfar guri ah ayuu qoray cismaan keenadiid oo ma garanaysaa sida carabi oo kale biixda ka qoranta maxay ahayd midigta ka qoranta biixdana u qoranta marka waxa weeyaan taasaa ka horeysay waxa ka horeysay far kale oo sheekh cabdiraxmaan sheekh nuur uu qoray oo maxay ahayd reer boorama ahaa oo iyadana la odhan jiray fartii gadabiirsiga ay Soomaalidu u taqiinay hadaad gadabiirsiga maqashaan dee waxa weeyaan is okay runtii Soomaalidu qabyaalada qalad bay ka fahamtay soo moogdiin waan in lagu faano weeyaan insha Allah hadaad ruux kulligeen nin walba qoladiisa sheegan leeyahay hada waxaan aad ka cabsataan ma idin haysan soo moogdiin qalad baad ka fahanteen baasha tii ilaahay jeclaana waad nacdeen tii ilaahay nicmaana waad ku isticmaalaysaan ala kulli xaal waxa weeye fartigeeda birsiga loo bixiyay farta iyada 1933 buu sheekhaas alifay fartaas oo lagu qori jiray culimadu af carabiga wax ku qoran jirtay kadibna waxa weeyaan 1972 iyo far Soomaaliga la qoray laakiin 12 sano tartan la galiyay ayaa ka horeysay in la qoro waxa lagu guuleysay afyaqaankii la oran jiray maxay shira jaamac ahmed luqadii uu soo saaray oo maxay oo tan hada qoray oo af Soomaaliga marka dadkii kullintii reer miyi loo kacay baa lagu yaa la bartay saadaradeedu xaaji maxay aadan af qalooc waa kii si saadiyay lahaa maxay ahayd markuu lahaa magaran dawladooda karaaniya dunida ma joogtay dadkii oo dhan kulli af Soomaaliga ku taateen waxaan meesha idin ku sheegnay suugaanta Soomaaliya say u qaybsanto waxay u qaybsantaa hees iyo maansada waxay u qaybsantaa ilaa 7 u qaybsantaa waxa weeyaan gabay geeraar masafa ama jiiftana waa la yiraahdaa guro waglo saar iyo buraanbur intaas waxa weey waa maansada inta ay qaybsanto heestan waxay qaybsantaa saddex bay qaybsantaa hees dhidid oo heesta xoolaha lagu shubo lagu waraabiyo karoorka lagu tumo mooyaha lagu tumo kabada lagu sameeyo ciirta lagu lulo shaqa wixii yimaado hees dhidid baa leeyahay hees hawlowd weeyaan haw karka la isku dhaafiya la isku ilowsiya heesna waxa weeyaan waa hees ciyaareed baa la yiraahdaa haday noqoto wagla noqoto iyo haday noqoto maxay dilka noqoto diisow noqoto iyo haday dhaanta noqoto iyo haday batar noqoto iyo haday hirimaaho noqoto iyo haday maxay ahayd noqoto kabeexiya haday noqoto iyo abasguulo mid la jirto oo koonfurta laga ciyaar haday noqoto iyo waxaas oo dhan waxa weeyaan wala saqa haday noqoto kulli waxaas oo dhan iyo shaangariga la sheegayo ma sha Allah waxa weey waxaas kulligood waa heesaha weeyaan maxaa ka xalaal qayb kale oo saddexaad baa jirta waa heesta oo maxay ahayd sasabka dadka lagu sasabo caruurta lagu sasaba xoolaha lagu daajiya ugaadhana waa lagu ugaarsan dadkii gabraarsan jiray waagi hore hees baa jirtay maanya la yiraahdo oo maxay ahayd oo lagu gabraarsado oo ma garanaysaa ugaadha lagu ugaarsan jiray jirtay taasna way jirtaa ala kulli xaal hoosaadun Soomaali way yaqiineen laakiin maxaa soo hadhay heesan cusub 1954 ayaa magaalada Boorame nin u dhashay oo Djibouti iyo Boorame inta kaga dhaxaysa gaari xaaji xirsi loo oran jiray uu lahaa baa kaga jabay meeshaas markaasuu markuu cabaar ku rafaaday buu sheegada halka waad ka dhageysteen Boorame balwada maalinta soo baxday weeyaan kadibna waxa weeyaan heestan cusub baa timid iyadina gobaygiina way halaysay akhlaaqdiina way halaysay waxa weeyaan waxayna isku dartay inay magaciiba bedeshaba oo ruux walba abwaan la yiraahdo abwaanka iyo gobyaaga iyo aftaankii oo bay isku wada laaqday waxa weeyaan runtii abwaanka waxa la dhahaa ruuxa murtiyaanka albulaqa wal adaba wal hukama af carabiga ku yiraahdo u dhigmaan saddexdoodu abwaanka suugaanyahanka iyo aftaanku waa ninka sida maxay idaaja oo kaliya sheeka xariir dadkaas aftahan ah waxa weeyaan abwaankuna waxa weeyaan oday biqi cali garaado kale ninkii la oran jiray weeyaan gobyaguna waa sida raagaas iyo dadka u dhigmo weeyaan maxay gobyo oo masuugaanyahanka marka wayna soo abwaankan ruux walba heesa maxay ahayd ama dhawaaqa lagu sheegayo abwaanku waa ninkii maxay Soomaalida ugu sareeyay oo curin jiray bay maxay murtida dadka curiya murtida iyo mahmaada waa laba weeyaan marka iyagu murtida gaar ahaan marmar bay raaci kartaa maxay dhinacan kala tagay ala kulli xaal gob waxaad ugu tagaysaan buuga gobayga Soomaaliyeed taariikhdu soo maray oo dhan kulligii iyo murtida Soomaalida maartay suugaanteeda taariikhda soo martay oo casrigan hadda ugu dambeeyaan ku jirnay casrigii burburka gobayga Soomaaliyeed ku magacaabay oo boqolaal kun caruur oo Soomaali aqoonay soo kacday waxa weeyaan casriga hoos u dhaca oo maxay ahayd ilaa iyo laga soo bilaabo maalinta balwada soo baxday intaas aan kaga gudbo wixii aan raaga ka iriyo iyo suugaanta Soomaaliyeed runtii buugan kalaata cilmi badan baa runtii ku yaal xajmigiisu ma weyno waxa idan kaga filan wax walba shantii Soomaaliyeed intuu waqtigii ayna la kala gogoosan sidii ahaan jirtay
maabkaas micnihiisu wuxuu yahay maalintii ugu horreysay oo dhul walba oo Soomaaliya la saaray khadka buu halkaa ku qoran dheydkii ugu horreeyay oo dhulkeenna Soomaalida ay gaaladu ay khariirada ku dhajisay meel walba maalintii ugu horreysay lagu dhajiyay waxaan kaloo idin sheegayaa waxa weeye buugan kalaata runtii waa buug aan dadaal badan ku bixiyay ilaa iyo muddo dheer baan gobaygiisa ururinayay ilaa Afrika telefooniya wax walba 20 jeer baan saxay oon xooray oon ma garanaysaa luqadiisa ku hagaajintiisa iyo ma garanaysaa erey bixintiisa runtii xiisado badan baa ku jira waan soo koobay aad baan u yeeray wixii munaasabada gobayga sababtu u tiriyo dhan waan soo yeeray anigoo ka cabsanaya inuu igu bato maxay ahayd madbacadiisa ay hashi igu bataan iyo dadka aqriskiisa inay ma garanaysaa ay ka daalaan marka wixii nuxurka ah ay qiimaha laba meesha yaala meel aan kordhiyay way jiraan sida maxay ahayd gabadhii libax ka qaaday oo kale iyo arrimo kale oo lamida marka insha Allah ta'ala buugaas isaga biidnillaahi alkariim waxaan isleeyahay suugaanta Soomaaliyeed inaan kaga hadha asaga raaga ugaasoo aabihii gobayga Soomaaliyeed ahaana runtii inaan waan u sameeyo buug waa wax weyn weeyaan runtii waa wax weyn weeyaan oo ruuxii arinta galay hawl adag galay waayo nin 130 sano ka hor dhintay oo waxba laga qorin waxyaabo yar yar oo la soo qaatay mooyeen in wixii uu lahaa la isku hagaajiyo oo wada maqan runtii intooda badan insha Allah ta'ala waxaan rajo weyn ka qabaa inay oo buugaas noqdo ma garanaysaa inaan ku helay isagii oo mar dad wax badan oo aan waayay inuu ii soo rido ta kale ilaahay idinkiisa waxa hadaad aqrisaan waxaad arki doontaan raaga abtirkiisii oo noo abtiriyay ogaada adduunka oo dhan markii wax la qorayo nin markaad bibliography waxa la yiraahdaa ama siiradaati aad qorayso ruuxaad wax ka qorayso haduu ruux bilaadan yahay waa inaad aad u abtiriso hadaad buug aad ruux leeyahay aad saxayso buuga ruux hela waa inaad u abtiriso marka buugtan aad arkaysaan oo dhan imaam Shaafici ugu yaraan 100 iyo ziyaado buug buu qoray buug kasto imaam Shaafici uu leeyahay abtirkiisana waa ku yaala waa inaad uuna gabi jiray imaam Raafi soo ma ogin diiwaan leeyahay uu gabi jiray imaam Shaafici soo ma ogin marka insha Allah ta'ala gobaygu haddaan wax yar ku soo noqdo gobayga xaqiisa laakiin waxa idin soo kordhiyay waxaan cidna qabanin hadee haddaan ka fadhiisan la ka warramo waxaan cidna qabanin baan soo kordhiyay runtii oo ahayd in hortay la sameeyo waana ka xumahay waliba bariga afka la qoray hadii la qori lahaa wax badan baa la heli lahaa hadda meesha ka maqan wax badan buuna ii taray raaga ugaas gobayadiisu oo xujooyin badan baan ku goostay oo ma garanaysaa meelo badan baan kaga baxay oo sidii maxkamad iyadoo ay saaran tahay oo kale idinkana waxaan rajaynayaa inaad wax badan ku helaysaan hadduu nin ma garanaysaa laba dumar ay isugu xigtay iga raali gabdhaha oo kala sita hadday midi ma garanaysaa midii hore gaari weydo naasoo xaliim xadii xaalna kama raacdo haddaad tiraahdo gobay miyaad u baahan tahay uma baahnid marka waxa weeyaan runtii waxa xujooyin badan ayaa gobiga ku qoran oo wada murti ah runtii oo ruux walba u baahan yahay ruux walba baan murtidan waxa weeyaan waa xigmad weeyaan alxikmatu daalatul mu'min waa xadiis ma waa maqula weeyaan runtiina nabiguna calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin wuxuu ku oran jiray xasaan ibn thaabit wuxuu ku oran jiray qul wa ruuxul qudsi macaka yani ruuxul qudsi baa kula jirtay difaac markaasuu oran jiray fa inna abi wa walidahu wa jaddi li'irdi muhammad minkum fidaa'u aniga iyo aabaha iyo awowgayba nabi maxamed iyo cirdigiisa ayaan idinka daafacaynaa gobay buu tirin jiray islaam ku daafici jiray soo moogdin sidaa cali wuu gobi jiray waa inuu imaam Shaafici uu gobi jiray dadka muslimiinta oo dhan xoogooda gobi jiray Abdullah ibn Abbas minbar buu ku lahaa masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii dambana markii uu soo wareegay oo xiisadaha oo dhan uu ku bixiyo tafsiirka ayaa ugu xoog badnaade xiisad waxa ku jirta al-adab al-arabi oo Aisha waa taqaan hatta aabaheed markuu dhimay gobi uu soo dariyay aabaheed baa sax ku sidaas ay idin dhahdo uu saxay waxa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii wax laga weydiiyo maalmihii carabta iyo gobaygoodiiba Abubakar buu oran jiray Abubakar la hadlay isaga nasaab ahaa marka insha Allah ta'ala raaga waxaad arkaysaa nasabkiisa hadaan ku soo noqdo marka insha Allah iska barta waxa weeyaan waa arin idin fiican weeyaan dadkiina aad barataan insha Allah ta'ala gaaraan ku raaca hore oo ma garanaysaa oo haliyada oo af Soomaaliga fadhiisiyay raaga waxa weeyaan af Soomaaliga af suugaanta laga soo qaatay oo abwaan baa laga soo qaatay oo maxay ahayd daldalaad baa laga soo dawlad baa laga soo gaas bal kalimaadka ciidanka ku saabsan af Soomaaliga oo dhan kulligii eray bixinta markii la sameeyay raaga ugaas waxa weeyaan qayb buu ku leeyahay qaybta ugu horeysa ku leeyahay wayna saa ogaataan marka nin sahlan ma runtii waxay dadku ka dhahaan kalimadan lacagta bariga hore dadku waxay kala doorsan jireen carabta waxa laga soo qaadi jiray Soomaalidu isu doorin jirtay niman kabarayaal ila awr wata iman jireen oo ma garanaysaa dadka dhex socon jiray markaasaa lacag bir ah baa soo baxday
oo ama xaashi waxay noqotaba ama ha ka timaada cadan maxay ahayd dhinacanka waxaan ka wadaa berbera oo nimankii ay yimaadeen maxay ahayd Cuthmaan dawladda Cuthmaan baa beriga timid berbera raaga noloshiisii ama ha noqoto heer oo xukun iska bedelay iyada nafteeda waqtigii raaga xukun baa iska bedelay ama koonfur iyo Zanzibar ka timaadeen lacag baa lagu arkay dhulku raaga joogay markaas sidoo warmatanu matii hore lacag tahay yani tan iyo tii hore ma isku cagba tanu matii hore lacag tahay lacagta la arkaysa waxa la leeyahay raaga Soomaaliya waxay dhahaan qaar baaba jiro oo haween waa hore ahaaba udba lacag la dhigi jiray waxaas dadku markay iskhilaafeen sheekada abuuray baan u arkaa anigu lacagtu waaga may jirin aad iyo aad baan mar labaad idinku mahad celinaya ma sha Allah waxaana ilaahay idinkiisa rajaynayaa suugaanta Soomaaliyeed insha Allah taala hal gobay baan kaga darsan doona insha Allah taala waxaan laakiin aan tiriyamee ninka la oran jiray Cabdullaahi Sultan Timcad gobaygiisa qabyaalada gobaygaas aan rabaa dukaan walba iyo meherad walba ee Soomaaliya leedahay raas Tajora yani jasiirada Tajora la yiraahdo oo Djibouti meesha ugu dambeeyay Soomaalida ay degto ilaa iyo Tana River inta u dhaxaysa Soomaalida degan ilaa qurbaha 500 oo kun oo dukaan ka badan ma laha waan sameyn karnaa in Soomaalida dhagta ka rinta inaan indhaha ka rinsinaan rabnaa insha Allah taala dukaan walba ugu dhajino siday u fahmaan baalkii waa iskaga laaqmay qabiilkii qabyaaladii ninkaasuna aad buu ugu eray bixiyay dadka kama yaraateen way isdabar jaraysaan waa runtii 2000 ba hadda sanadkan la dilay ama ka badan Soomaaliya 200 oo sano kadib waxay 500 oo qiyaastii Soomaalida ku dhashay la qiimeeyay 500 oo kun oo ruux oo waxaan ka wadaa 200 oo sano kadib 500 oo kun oo ruux oo Soomaali ah oo jiri lahayd ba sanadkan kale loo dhameeyay وقياسا يعني نظامك ونظام علمي أن كان إن شاء الله تعالى مرة إن نصير حق الحوض الصومالي سيؤبضت يعني الوفيات والمواليد قيمها يعني سيدا أترمان مركز القيمين أن كان لنا مركز إخواني إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير راجو وقاسو فكان يقبيس ويبكى لو ذا قريبا سوري دي رنتي وان ليس حدا آد باليس حدا صومالي بريان دمو مقرنسا يقول دم بكالهين حديثان كاسو بيدبا اسكول انيغو قصدا انا idinku soo dhameynaya baydhaba iskuul anigoo ka dhigta sideetamaadkii waa wareysoma ayaa waxa dhacday waan xanuunsaday aad baan xanuunsaday marka shimbir baan geeraar raaciyay geeraar bariga wax baan tirin jiray geeraar baan raaciyay shimbir meesha abahay joogay baan u diray wiil dhalinyarada kamida oon arday secondary markaan ku jirin aan isbaranay ayaan xifdisiyay qayb kamida intii arartii hore iyo dhamaadkii labadii uu ka tagay laano meeshaan u diray bay ku qoran tahay dhamaadku magaaladan ilaahay amarkiisa aan joogno buu igu yimid waa dhaxlaarahay wuxuu yiri muxuu stabirgan ardaygan xanuunsaday ee geeraarka tiriyeen shimbirta raaciyay hayabaan idhi aniguna markaas uu ii aqray on maalinta waan ku yiri soo moogid cid ku sheegtay maadu horta ruuxii tiriyay buu yiri waxaad walaaysan raagogal jazaakumullahu khayr wa salaamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وإذن سلامي علماء قبلها iyo dadka sharafta leh oo isugu yimid meeshan Sheikh Ahmed Sigaar sida uu isugu taxallujiyay in uu nooleeyo taariikhda raagowgaas iyo inuu qoro buugaag badan oo ummadda wax badan u taraysa aad iyo aad bay farxad noo gelinaysaa iyo rayrayn waxaan xoogaa jeclaan lahaa dhinaca suugaanta markii aan xaloo dhan baan koolkoolinayay oo raago gabayadiisii iyo bal mirmiraafayoon lahaa bal hadda inaad wax ka garato badan marka gabayga cajaa'ibka ah oo gabadha markay ka geeriyootay u tiriyay hugunka iyo maaragtay sawaxanka iyo uurgubashada ku taxalluqa iyo sida uu u tiiraanyooday ayaa aad iyo aad ii taabtay laakiin isla gabaygii ayaan waxaan arkay line ka mid ah oo tilmaamaya habar kurkii laga jaray oo usaasa adigu habar adigu inta waran lagu dhuftay kollayba dhimatay markaasaan waxaan idhi horta habar haddii kurka laga jaro dee mana eedaanto mana taaxdo oo taah ma uu maqli karo oo taa xoogaa yaraha nuqdad baan ka keena waliba maadaama aan raaga aad iyo aad u jeclahay iyo gabayadiisa waxaan idhi line-ka waxaan u malaynayaa in lagu kordhiyay oo in laga saaraan jeclaan lahaa muxuu gunaanada iyo hadalkayga assalaamu calaykum waraxmatullah marmar baa jirta ruuxa gabyaaga weedha inuu aad buu raaga uga fiirsan jiray hadalka inuu maaragtay ka wanaagsan xusho laakiin marmarka qaarkood uma suuroobayso waliba marmarka qaarkood inuu hadalka wanaagsan xusho wuxuu soo amaahan jiray ma garanaysaa mid kale oon meesha ku jirin sayna qaafiyad uga lumin
marka waxaasoo dhan buugaad ku arkaysaan yacni saan u keenay ma garanaysaa exampleka iyo tusaalayaasha tan waxa weeyaan haweenaydaas da'da weyn hal wiil bay lahayd oo madi ah iyadii lama dilina wiilkii madigaabaa laga dilay wiilkii madigaa markii laga dilay sawaxan buu ku socdaa gabigu intiisa badan marka sawaxankii iyo qayladii bay qayb ka tahay iyaduna markii ninkii laga dilay way qaylisay marka wayna qayli kartaa awood badan ay ku qayliday leedahay laakiin iyadii lama dilin marka saas weeyaan jazakallahu khayr الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. waxaa lanoo furan maraynayaa baabka su'aalaha doktoorku ha u diyaar garoobo inuu jawaab ka bixiyo su'aalaha dadweynaha haddaan ku horeeyo waxaan rabaa inaan weydiiyo doctor Sheekh Axmed Nuur su'aal ku saabsan nasabka ama abtirsiimaha raaga ugaas waxaan u malaynayaa sheekhu wuu waday ilaa caqiil bin abu aalib buu gaarsiiyey ilaa caqiil bin abu aalib ayuu gaarsiiyey sheekh axmed ma jiraan masaadir laga soo qaatay in abtirsiinyaha qabiilka daaroodka la yidhaahdo uu galo caqiil bin abu aalib su-aasha labaad waxay tahay soomaalida qabaa'il fara badan baa iyaguna waxay ku abtirsadaan aalubeytka nebiga calayhi salaatu wasalaam ama carabta masaadir markaa iyagana lagu qoray oo caddaynaysa dadka nasabkooda ma jiraan mise waa sheegata wallahu aclam waa mide siduu sheekh u sheegay walaalkeen sheekh maxamed mukhtaar sayid soomaalidu carabta way gashaa way sheegataa anigu maadaama wax qorqori jiray ama wax raadin jiray waxaan arkay qabaa'ilkan hawiyaha la yidhaahdo inay aabbahood nin masri ay ka yimaadeen asalkooda yani ummaddaas qaybtaas inay ka yimaadeen masar oo ay halkaa ka yimaadeen waxaan kaloo arkay buug kale oo leedahay sheekh isxaaq isaguna waxa weye ree aalibeytka weeyaan oo buug kale labadaa buugba waan arkay anigu personally runtii taas micnaheedu waxay tahay waa hal qodob weeyaanoo oo soomaalidu way sheeganaysaa kulligeed waa kow dhinacaas halkaasna ka dhinaca kale waxaan shaki ku jirin daraasadii aan samaynay iyo qolyahan antropologiga iyagu waxay sameeyeen iyo kii diiniga aan samaynayba wax badan oo qoraala ma jirin lakiin marka wax la isu geeyey oo wax badan la kaashaday dadka soomaalidu inuu yahay dad asia ka yimid iyo dad afrikaan ahoo isdhex galay dadkan soomaalidu inay dad kale dhex galeen laakiin inay yimaadeen hadda ajuuraan kol kale waxaa la dhahaa maarata hindi weeye asalkoodu ma garanayno anigu inaan baddaa sii dhexgala ma raba laakiin dadkan soomaalidu waa dad noocaasa waa dad intermarriage weeyaan waa dad isdhexgalay weeyaan keligoodna mee ummadan liilkan degan ilaa iyo suudaanta qaybaheeda xeebaha xiga ilaa iyo zanzibar iyo mozambique lagu gaadho waa dadaynu isku noocnahay weeyaan xabashida oo kale ama amxaarada ama tigreega ama shawaydii hore saddexdooduba 800 sano ciise kahor calayhi salaatu wasalaam bay tahaamo ka guureen oo yaman bay ahaayeen markaasay intermarriage ku sameeyeen dadkii dhulkaa deganaa saa daraaddeed baad shariixadooda iyo tadaaristooda luqadooduna waa luqa jacziya loodhan jiray luqadii hore waxay ku jirtaa luqooyinka saamiga laakiin teena koshitik baa la dhahayoo saamiyiinta ka mid maa luqadeena labadaa qaybood horta ogaada qayb saddexaadoo waxaan rabaa inaan idiin sheego ruuxa nasabkiisu waa xasaas weeyaan wuxuu sheego haddii aadan proof u haynin wax cad evidence haddaadan haynin oo fari kama dhacdaan hodan gacanta adigu saaraynin wuxuu sheegto ayaa sax waa inaad taas ogaataan qabiilka haddii adu waxaad ku burisay aadan haynin waxa sheegashada qadiyadda nasabkuna waxa weeyaan waa qadiyad very maxay ahayde diinta qayb weynka marka waxba in kurtikuteenaan iska dayna ruux walba wuxuu sheegta ha loo daayo ilaa wax cad ha la keeno haddii intaa laga tago oo tii nimankii reer bani fulaan aan usoo noqdo runtii way jirtaa waxyaabo badan oo qoran baa jira sheekh aadan cawliyahaan oo ninkii bukhaariga keenay soomaaliya iyo tafsiirka ibnu kathiir labadaba alxamdulilah rabbi alcaalamiin makhtuudaadkii gacanta ku qoray 31 sano igu qaadatay sheekh leelkasa ahoo kitaab qoray bukhaariga oo tafsiir ku sameeyey isaguna wuu ku qoray magaciisa aan hadda haynin sayid maxamed cabdilla xasan gawyadiisana way ku jirtay cali baricadoo maxay ahayd awowga ka hadlay la odhan jiray maxay ahayd waa markuu lahaa sayid maxamed dabadi ma adag saahid loo boge
surka marada waxa loogu sari waa sagaal islaameed abid waa siyaaro ma maqal subla weerariye tani iyo fiqi sabiid ugu badnaa weli samca raaye fiqi sabiid waxa weeyaan ismaaciil jabarti as-sabidi al-jabarti al-aqili weeyaan gobayada Soomaaliyeed bay u tahay inta hadii laga soo tago nimankan carabta buwaagteeda ay qoreen al-ali fi ansab al-aqiliyin ay aqil ay qoreen waxay dhaheen qolo ba maxay ahayd qoyskaas ba xagga naga jira ma garanaysaa caruurtaas oo dhalay waxay walaalahaayeen nin yaafic la yiraahdo waxay kale waa nin suur la yiraahdo waxay kale waa nin mahar la yiraahdo isaguna 5 ilmood buu dhalay nin maxamed la yiraahdo kuwan kabla ay sheegayaan uu yahay waa say nagu dheenata iyo ma garanaysaa nin kale oo la yiraahdo xasan oo ninka sada la yiraahdo iyo mid xuseen la yiraahdo leelkasa iyo ma garanaysaa ciise iyo ninka oo la yiraahdo maxay ahayd yuusuf bugaagtoodii way kuwii carabtaha baa saa dhahay oo bugaag iyagu qorteen nasabkeed ku qoreen baxdeen qoys baa naga fakaday oo magaciisa taaruud baa loo jiray bimaana madruud yani waa la eriyay marka inaan ikhwaani igana raali ahaada qoys kasta oo Soomaaliya marka bugaagtan idin sheegay hadda aan aydan laha hawiyaha buugooduna halkaas soo galaa isaaquna halkaas soo galaa waxa weeye kulligood sidaan hadda idin daliilkan idin sheegay oo dhan bay sheeganayaan so you have no way yani wax aad kaga hortay DNA inaad qaado hatta ma garanay laakiin wax kale kaga hortay karta ma jirto marka nin Soomaalidu Arab waynu sheeganay sheekh saas oo caday Soomaalidu Arab ay iska tahay jazaakumullah khair halka inoogu joojiye Mm-hmm.